سلطانك بيلا أبو عفان يوسيرك وزارة waxbarashada oo wax ka sheegay dadkii ka soo jeeday beesha Abu Cafaan ee ka soo diirrogtay xisbiga kulmiye kuna soo biiray xisbiga wadani markay arkeen dadku halku u socdo saadaashu halka u socoto dadka aqliga leh garaadka leh damiirka leh halkay joogaan inay iyaguna tagaan ay ka sheegeen yiraahdeen maxay dad la soo urursaday weeyaan dadka beesha ka hadlayay ama goobjoog ahayd waxay ka soo jeedeen beelaha jibraacinka musafiinka dhagaweynaha cid kastoo baxayda ku soo biirtayba anoo warta gacmo furma ku soo dhaweynayna ta kale waxaan message halkan uga dirayaa beesha Habar Cafaan bal in ay u sheegaan beesha waa beesha ka soo jeednay waa beeshii Suudaanku hogaaminayay waa beeshii wasiirku ka tirsanaa laakiin maxaa meesha yaala Habar Cafaan bal ha weydiiso Suudaankan Cabdiraxmaan ina jaamac dhawe iyo wasiirka Cabdullaahi Abare bal waxay kula heshiiyeen kulmiye ay uga hayaan xisbiga ay uga hayaan ma in xukuumadda si dhacaysa ma in xukuumadda Cabdullaahi wasiirka yahay waa xisbiga kulmiye waxay kula heshiiyeen iyo heshiiska la galeen iyo heshiiska koofiyadda dadkaygu ku jira uu yiri bal hal keenaan beelaha Habar Cafaan oo dadka xaqayaan Habar Cafaan waxaan leeyahay weer guri madow iyo maxay ahayd meel madow iyo meel baxay dad bilaa indhi inagu hogaaminayaan ka soo dareero cadeeda sacab lagu qariyo cadeeda sacab lagu qarin maaye cadeeda iftiinka soo raaca intii hore noogu timidna waa naga mid inta dambe iyaga si ag joogjoogtana waxaan leeyahay habeenada soo socdaba afar ama saddex kala u qabanayna inay ku soo biireen xisbiga oo ku jira wadada ku jirey was gacmo furma ku soo dhaweeyna waa in laga aqleystaa ama laga waantooba ama laga garaadaystaa meel heshiis ooli meel waxba ooli meel heshiiskii la galay ina bixi una jirin oo lagu qancin kareynin maxay musharax musabbixina waxa leeyahay waxba yaan beel lagu sheegay waxba yaan ma garanaysa lagu wada dad baanu hayna waxba yaan lagu wada dad ba koofiyada ku jira war dadku waa wadani cod aad halkan ka filayso oo gobolkan awdal ka filayso oo Habar Cafaan ku siineysana ha u fadhiin ama runu qaada oo been u qaadee